kusoo dhawow janalka mustafdoobiye fadlan haddaan ugu cusub tahay calaamada hortaada ka muuqatay sabscribe-ka markaysaan ugu soo baxday taabo gambaleelkana furano janalka mustafdoobiyana macluumaad fara badan ayaa kala socon doontaan. janaalkaasina waa janaal youtube islamarkaasina xogta soomaalida waxyaabaha kala duwan ee nagu soo gudbiyeen youtube-kani. haddii aad gambaleelka furto waxaa kamid noqon doontaa youtube-ka mid ku xiran islamarkaasina macaamiil joogta subscribe-ka taabo laagtana taabo gambaleelkana furo. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilhantiin meel walba waa naga daawanaysaan. waa anigoo mustafdoobiya janalka nagala socotaan waa doobiya media. ra-iisul wasaarihii cusbaay oo cod aqlabiyada baarlamaan kalsooni ka helay. mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa codkooda aqlabiyada maanta waxay ku siiyeen kalsoonida ku shaqeynaya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaas oo dhowaan uu soo magacaabay maxamed cabdulaahi farmaajo. mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa aqlabiyadaasi waxay ku siiyeen 215 kalsoonida ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si uu usii guto hanaankiisa waxqabad ee uu hiigsanayo. guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada baarlamaanka oo ku ansixiyay 215 cod aqlabiyada wax ka aamusay ma laha, wax diiday ma laha. waxaa ra-iisul wasaaraha kalsoonisi ogol u codeeyay 215 xildhibaan. isla goobta waxaa ku dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub magac ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala. wabillahi tawfiiq. wasaare maxamed xuseen rooble ayaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya wuxuu ka horjeediyey hiigsiga iyo waxqabadkiisa dowladda soomaaliya waxyaabaha horyaala oo diiradda u saaraya isagoona soo qaatay ilaa 8 qodob oo ugu horeyso amniga, sidoo kalena dib u heshiisiinta, kobcinta dhaqaalaha iyo qabashada doorasho iyo waxyaabaha kale ee dowladda iskaashiga caalamiga. arrimaha amniga 2 arrimaha doorashooyinka 3 horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada 4 cadaaladda iyo garsoorka 5 dowlad wanaag iyo la dagaalanka musuqmaasuqa 6 dib u eegista dastuurka 7 dhab u heshiisiinta in heshiiska dhab loo gaaro 8 iskaashiga caalamiga.